Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ka hadlaysa waalidkoo lagu caasiyo cuquubada ay leedahay adduun iyo aakhiraba. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Da ayaa haysa odaygan ka tallaabay 80-ka. Mararka qaar wuxuu waayaa xusuustiisa, wuxuuna noqdaa sida qof waalan oo kale. Kadib ayay u soo laabataa xusuusta. Odaygan 3 wiil oo uu dhalay ayuu u guuriyay mid walba gurigiisa ayuuna dhinaca ka dajiyay, laakiin wiilashiisa xaasaskii ay qabeen ayaa dhibsadeen odayga joogistiisa. Sidaas darteeda waxay diyaariyeen qorshe odayga looga ereeyo guriga. Nimankooda ayayna ka dhaadhiciyeen inay aqbalaan qorshahan oo ah in odayga la geeyo xarunta waayeelada marka xusuusta ka tagtana la wado. Waa ayna aqbaleen. Odaygii markii uu miirka ka tagay ayay bilaabeen naagihii inay isku hambaliyeeyaan. Wiilashina aabahooda ayay u kaxeeyeen xarunta waayeelada. Mas'uuliyiinta xarunta waxay ku yiraahdeen, odaygan jidka ayaan ka soo helnay, adinka ayaana idiin keenay si aan ajir uga helno. Mas'uuliyiinta xarunta aad ay ugu farxeen maadaama odaygan uusan lahayn dad. Markii ay sii baxayeen waardiyaha xarunta ayay waxay ku yiraahdeen, odaygan haddii uu dhinto waa kan ciwaanka guriga iyo telefoon nambarka nala soo xiriir. Odaygu xusuustiisa ayaa u soo laabatay, wuxuuna u dhawaaqay wiilashiisa 3 ahaayeen si ay biyo uu ku weyse qaato ugu keenaan. Laakiin waxaa lagu yiri, halkan gurigaaga ma aha, waxaad joogtaa xarunta waayeelada. Wuxuu weydiiyey odayga, goormeen imid halkan? Waxaa lagu yiri, waxaad timid maalin heblaayo. Wiilashiisa sida ay u ekaayeen ayay u kala tilmaameen. Odayga si tiiraayo ku dheehan tahay wuxuu u yiri, kuwan waa 3dayda wiil. Kadib gacmaha ayuu kor u taagay asagoo habaarayo, Ilaahow siday arrintan iigu sameeyeen, Ilaahow i tusi wejiyadooda ay naarta cunaysa maalinta qiyaamaha, jannadana ka xaaraantinimay. Markii uu sidaan u habaaray ayuu odayga wuxuu codsaday in loogu yeero mas'uulka xaruntan. Xaruntan ayuuna wuxuu ku qoray inta dhul iyo hanti uu lahaa, kadibna waa uu geeriyooday. Wiilashii waa ay farxeen markii uu la soo xiriiray waardiyaha, lacag ayayna siiyeen, way baxeen ayagoo faraxsan si ay ula wareegaan hantida aabahood. Laakiin waxaa ka hor istaagay ciidanka amniga ee xaruntan, waxayna u sheegeen aabahooda inuu xaruntan ku qoray hantidiisa oo dhan. Waxay kalowna u sheegeen inay ka baxaan guriga hadda ay degan yihiin. Tani waa ciqaabtii adduunyo, tii aakhirana way u dhiman tahay.